رئيس وزراء حكومة فدرالك الصومالية مدن محمد حسين روبلي مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو waxay labadu ogaayeen isla markaana taageero weyn joogto ah siinayeen heshiiska qaybsiga batroolka ay wada saxiixdeen mas'uuliyiinta shirkadda Crystal Exploration iyo wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Axmed waxaa sidaas sheegay inuu ka tirsan shirkadda fadhigeedu yahay Mareykanka ishaan oo waraysi gaar ah siisay idaacad kamid ah idaacadaha ku yaal magaalada Muqdisho ayaa intaa ku dartay in ay la yaabeen isbeddelka dhacay iyo hadallada Roble iyo Farmaajo si ka duwan warkii ra'iisul wasaare Roble ah in heshiiska aanu buuxin shuruudaha waxa ay ishani oo ka gaabsatay min magaceeda la xuso ay sheegtay in heshiiska uu dhameystirna dhammaan habraacyadii sharciga ayna soo bandhigi doonaan waqtigeeda kaasoo waxay sheegayaan in lama filaan ku noqotay jahwareer oo arkaan hadallada ra'iisul wasaaraha Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labadu ku qanacsanaa heshiiska iyo habraacyadiisa inkastoo qoraalka soo baxay xafiiska Roble lagu sheegay inuu sharci darro yahay heshiiska uu saxiix wasiirka batroolka halka Farmaajona uu sheegayba inuu heshiiska ka hor imaanayo tikiraato uu heshiisyada ku joojiyay xilligii doorashada soona saaray 7 bishii 8 2021 haddana waxaa muuqata in ay ku lug lahaayeen heshiiskan Cabdirashiid waxa uu xusayba in uu taageero ka haystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Crystal Exploration dhankeeda waxa ay sheegaysaa in warqadahooda ay sharci yihiin madaxda labaduna ay ogaayeen iyagoo intaa ku raaciyay in ay warka sugayaan باريس حير إداريها جودة قرنك سليمان محمود وزير كهرباء بترولك محمد مختار أيها شيء إن سببت الرابلة إياه فرماج استجاب فوقين يشيس كأيتاي إنه كار إيمانيا نظام كيدين عفين لكن أو مختار خده بإن لبضان فاللبضان أي دل كان كدقي صد دل ألو كل سونا كان كرتنا إن شركته مالقشان لها أي كأمنا أما كأمن بحال وحو أنت راعي وانت راعي ان شركة كاستر اكسبلوريشن اي حد فرنتهاي ان اي سميسو كو ان اي سوغان حكومة سو سعوطة لبا ورقضها iyo saxiixida ula dacwo tagaan maxkamada caalamiga guddiga maamulka maaliyadda oo ka kooban mas'uuliyiin Soomaali ah iyo kuwa IMF ah bangiga adduunka iyo deeq-bixiyaasha kale ayaa warbixintooda 2020 guddiga in la galo heshiis shidaal ka hor inta aan la dhameystirin qaab dhismeedka sharci ee loo baahan yahay gaar ahaan dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay sheegtay in abaalmarinta BSA iyadu ay timaado kadib markii la ansixiyo hindisa sharciyeedka canshuuraha dakhliga warshadaha kaas oo xukuumadda shuruudaheeda maaliyadeed ee BSA nidaamka canshuuraha ee lagu dabiiq karo sharciga ayaa hor yaalo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya